Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal halkani waa channelka Haga Media ku soo dhawaada qodobada warka duhur waxaan ugu waaweyn madaxweyne Farmaajo oo qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi calanka Soomaaliland oo 3 bari hoos loo dhigay iyo aas qaran oo maanta loo sameeyay taliyihii biliiska Soomaaliland madaxweynaha maamulka Puntland oo ka laabtay in xasaanada laga qaado xildhibaankii su'aalaha ku weeraray madaxweynaha maamulkaasi Axmed Madoobe oo aqbalay in lagu celiyo doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo iyo madaxda Jubbaland oo ku kala qaybsamay arrintaasi الجماعة oo war ka soo saartay hadalkii wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Ilay madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo la ogaaday in xukun xabsi daa'in lagu xukumay iyo xabsiyada Itoobiya oo ay buux dhaafiyeen maxaabiis u dhalatay qoomiyadda Oromada kuwaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii warkeena ugu waaweynaa u diyaar garooba warkaasi oo faahfaahsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ugu horeysay qadka telefoonka wuxuu kula hadlay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qadka telefoonka wuxuu kula hadlay madaxweyne Muuse Bixi Cabdi wuxuuna uga tacsiyeeyay maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale shacabka reer Soomaaliland geeridii naxdinta lahayd ee ku timid taliyihii ciidanka biliiska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan oo ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland wareediyo lagu kalsoon yahay oo ay heshay Haga Media ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xalay qadka telefoonka uu kula hadlay madaxweyne Muuse Bixi Cabdi isla markaana ay ka wada hadleen arrinta geerida wuxuuna uga tacsiyeeyay geerida ku timid Cabdullaahi Fadal Iimaan channelka lagu magacaabi jiray oo ahaa taliyihii ciidanka biliiska maamulka Soomaaliland waa markii ugu horeysay oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxweynaha Soomaaliland uu si toos ah ula hadlo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa waxa uu sheegaa inuusan aqoonsanayn dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuuna inta badan weerar cad ku qaadaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre kuwaas oo ku tilmaamo madaxweyne Muuse Bixi dhalinyaro qabsatay dalka Soomaaliya Muuse Bixi Cabdi ayaa sidoo kale waxa la soo warinayaa in si wanaagsan uu ula hadlay isla markaana dhamaalka tacsida uu kaga doomay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale shacabka reer Soomaaliland wuxuu uga tacsiyeeyay geerida naxdinta leh ee ku timid taliyihii ciidanka biliiska maamulka Soomaaliland General Cabdullaahi Fadal Iimaan jananka ayaa waxa uu ku dhintay magaalada Hargeysa isbitaal ku yaala waxaana sidoo kale la soo warinayaa in isbitaalka Hargeysa ay yaalaan 2 janan oo midkood uu yahay taliye ku-xigeenka ciidanka biliiska kuwaas oo ayagana xaaladooda laga dayrinayo warar ay heshay Haga Media ayaa waxa ay sheegayaan in ay macquul tahay in saraakiisha ka tirsan maamulka Soomaaliland oo kamid yahay taliyihii ciidanka biliiska Soomaaliland ee geeriyooday Cabdullaahi Fadal Iimaan in la sumeeyay isla markaana hadda baaritaan lagu wado hay'adda dambibaarista ee CID biliiska maamulka Soomaaliland ayaa waxay xaqiijisay in ay ku wado baaritaan isla markaana wixii ka soo baxa ay la wadaagi doonto madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa isbitaalka uu ku geeriyooday Allah u naxariistay Cabdullaahi Fadal Iimaan taliyihii ciidanka biliiska Soomaaliland tagay wuxuuna sidoo kale uu amray in muddo 3 maalin calanka Soomaaliland hoos loo dhigo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bixi Cabdi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in calanka Soomaaliland laga dajin doono dhammaan xarumaha dawladda isla markaana hoos loo dhigi doono muddo 3 maalin ah si lagu muujiyo tacsida ciidanka biliiska Soomaaliland ee uu ka geeriyooday Cabdullaahi Fadal Iimaan Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa muddo wuxuu ka soo shaqeynayay biliiska Soomaaliland wuxuuna sanadihii ugu dambeeyay ahaa taliyihii ciidanka biliiska Soomaaliland asagoo shaqo wanaagsan qabtay maanta ayaa la filayaa in aas qaran lagu sameeyo qabuuro ku yaala magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland halkaas oo salaada janaasada ay kula tukan doonaan boqolaal shacab oo ay kamid yihiin madaxda xisbiyada iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi madaxweynaha maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in Cabdullaahi Fadal Iimaan uu shaqo wanaagsan ka soo qabtay deegaanada maamulka Soomaaliland isla markaana uu ahaa nin u soo shaqeeyay qaranka Soomaaliland oo ay tabi doonaan General Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa waxa sidoo kale wada shaqeyn uu la lahaa hay'adaha kala duwan ee maamulka Soomaaliland iyadoo sidoo kale biliiska Soomaaliland ay tabi doonaan shaqadii wanaagsaneed uu ka soo qabtay waxa sidoo kale madaxweynaha maamulka Soomaaliland aaska qaran marka loo sameeyo taliyaha ciidanka biliiska Soomaaliland oo magacaabi doona sida wararka
aan ku helayno guddi ka soo shaqeeya qaabka baaritaan ee lagu samayn doono geerida ku timid taliyahan oo wararka soo baxaya ay sheegayaan in la sumeeyey. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu kulan la qaatay xildhibaano ka tirsan maamulka Puntland kuwaas oo tagay magaalada Qardho oo ku sugan yahay madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdullaahi Dani. madaxweynaha maamulka Puntland oo ku sugan magaalada Qardho ee gobolka Bari ayaa waxa uu kulan la qaatay ilaa 20 xildhibaan oo ka tagay magaalada Garowe. ujeedada xildhibaanadaasi uu kulanka ula qaatay ayaa waxay ahayd inay kala hadlaan xasaanada la sheegay in laga qaadi doono xildhibaan Cabdiweli Xasan Daand oo ahaa xildhibaankii su'aalaha kulul ku weeraray markii kala fadhiga baarlamaanka Puntland uu furayay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. 20 xildhibaan ayaa waxaa la sheegay in ay madaxweynaha ka codsadeen in xeer ilaalinta Puntland ay ka laabato xasaanada laga qaadayo xildhibaan Cabdiweli Xasan Daand oo ka mid ah baarlamaanka maamulka Puntland. war ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha Puntland Siciid Dani uu aqbalay in laga laabto xasaanad ka qaadashada laga qaadi lahaa xildhibaan Cabdiweli Xasan Daand. waxaana sidoo kale la sheegay in xeer ilaalinta laga codsaday in ay kiiskaasi dib uga laabato isla markaana madaxweynaha maamulka Puntland uu cafis fidiyay. xildhibaan Cabdiweli Xasan Daand ayaa waxa uu ahaa xildhibaankii su'aalaha kulul ku weeraray madaxweynaha maamulka Puntland taas oo sababtay in madaxweynaha Puntland uu ka caroodo isla markaana uu amro in xasaanada laga qaado. sharciga iyo dastuurka maamulka Puntland ayaa dhigaya in qofkii ku xadgudba dastuurka in xasaanada laga qaado waa haddii uu yahay xildhibaan isla markaana xildhibaankan ay ku cadaatay in uu been abuur ka sameeyay ammaanka maamulka Puntland gafna uu u geystay dastuurka iyo shacabka maamulka Puntland. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa lagu soo waramayaa inuu aqbalay in lagu celiyo doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee uu ku soo baxay. waxaana sidoo kale la soo warinayaa in arrintaasi ay khilaaf uu ka dhashay. madaxweynaha maamulka Puntland ayaa wasiirada iyo sidoo kale mas'uuliyiin isku dhow yihiin waxa uu ku wargeliyay in beesha caalamka ay doonayso in doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo in lagu celiyo. waxaana taa beddelkeeda khilaaf uu soo kala dhaxgalay madaxda maamulka Jubbaland kuwaas oo sheegay inaysan ku qanacsanayn hadalka beesha caalamka iyo Axmed Madoobe. Axmed Madoobe ayaa waxa uu sheegay in beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayaan in doorashada ka dhacday magaalada Kismaayo in lagu celiyo. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gabi ahaanba waxay diiday doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo oo ay ku soo baxeen Axmed Madoobe, Cabdirashiid Xidig iyo sidoo kale Cabdinaasir Seraar Maax. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay tilmaantay in doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo guud ahaan ay ahayd mid fowdo ah isla markaana aysan aqoonsanayn dowladda dhexe ee Soomaaliya. hadalkan ka soo baxay Axmed Maxamed Islaam Madoobe madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli cadaadis beesha caalamka ay ku hayso maamulka Jubbaland taas oo ku aadan in doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo waa mid baarlamaanka iyo tan madaxweyne in lagu laabto si loo xaliyo khilaafyada taagan. waxaa adag in maamulka Jubbaland gaar ahaan madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo dhinacyada maamulka Jubbaland inay aqbalaan in doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo in lagu celiyo. wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug ahna caasimada gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in maamulka Ahlusunna wal Jamaaca ay war ka soo saareen hadalkii wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya kaas oo ahaa in Ahlusunna wal Jamaaca ay caqabad ku tahay hanaanka doorashooyinka iyo sidoo kale arrinta ka socota magaalada Dhuusamareeb. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan madaxa xukuumadda Galmudug kana tirsan hoggaanka Ahlusunna wal Jamaaca ayaa waxa uu sheegay in wasiir Cabdi Sabriye Qarafaan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya uu sheegay hadal kicina isla markaana uu yahay hadalkaasi mid la doonayo in xuquuqda Ahlusunna wal Jamaaca lagu doosiyo. madaxa xukuumadda Galmudug ayaa waxa uu imaanayaa xilli wasiirka arrimaha gudaha waraysi uu siiyay BBC-da inuu ku sheegay in Ahlusunna wal Jamaaca dhibaatada ka taagan Galmudug ay iyadu mas'uul ka tahay. waxaa sidoo kale uu sheegay madaxa xukuumadda Galmudug in arrimaha ka socda deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ay horseed u tahay dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana khilaaf kasta oo ka dhaca ay mas'uuliyadda qaadayso dowladda dhexe. madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar Cabdi Ilay ayaa la soo warinayaa in xabsi daa'in lagu xukumay. warar ay heshay Haga Media oo ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta dalka Itoobiya ayaa waxaa lagu sheegay in Cabdi Maxamuud Cumar Cabdi Ilay madaxweynihii dowlad deegaanka Itoobiya in la ogaaday in lagu xukumay xabsi daa'in. go'aankan ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu soo baxo iyadoo hadda si hordhac loo helay in Cabdi Ilay xabsi daa'in lagu xukumay. Cabdi Ilay ayaa waxaa lagu eedeeyay rabshadihii ka dhacay deegaanada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo sidoo kale dad aad u fara badan oo halkaasi lagu laayay qaarkoodna si xun loo jirdilay.
hay-adaha u dooda xuquuqda insaanka ayaa waxay Cabdi Ilay ku eedeeyeen in uu sameeyay gabadh fallo ka dhan ah bini'aadantinimada, waxaana sidoo kale hadda uu wajahayaa eedahaasi iyadoo sidoo kale la ogaaday in xabsi daa'im lagu xukumay islamarkaana xukunkiisu maalmaha soo socda ay soo ifbixi doonaan. weli waxaa la socotaan warka duhur waxaana ka dhageysanaysaan channelka Haga Media. xabsiyada Itoobiya ayaa la soo warinayaa inay buux dhaafiyeen maxaabiis u dhalatay qowmiyadda Oromada kuwaas oo lagu xirxiray xabsiyada waaweyn ee ku yaala wadankaasi Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in haatan xabsiyada ay buux dhaafiyeen kumanaan ka mid ah dadka banaanbax dhigayay ee u badan qowmiyadda Oromada. waxaa sidoo kale dowladda Mareykanka ay sheegtay in laga doonayo Ra'iisul Wasaaraha wadanka Itoobiya inuu dejiyo xaaladda dadka banaanbax dhigaya, waxaana sidoo kale tan iyo markii la doortay Abiy Ahmed iyo intii ka horeysay doorashadiisa isu soo taraysay banaanbaxyada ay sameynayaan qowmiyadda Oromada kuwaas oo sheegay in dhibaato aad u weyn ay ku hayso dowladda federaalka Itoobiya. warkii oo aad kala socoteen channelka Haga Media qiyaaray waanaga intaas tan kulan dambe nabadgelyo.